taxanaha caafimaadka. 6 calaamadood oo digniin u ah in cillad dhanka beerka ah ay jirto. Beerku waa xubin muhiim ah oo ka tirsan jirka aadanaha. Sunta ayuu jirka dibaddiisa u saaraa, waxaanu ku yaalla qaybta midig ee xigta dhinaca caloosha. Qayb ka mid ah waxaa ku daboolan feeraha. Website-ka iyo WebWorld ayaa qoray calaamado gaar ah oo digniin u ah in beerku xanuunsanayo, dhibaatana ay haysato islamarkaana ay habboon tahay in la baaro. Hal xanuun soo noqnoqda oo dhanka caloosha uu qofku ka dareemo, gaar ahaan dhinaca midig ee caloosha ku beegan. 2 oomateedka oo qofka ka xirma oo cunnadu u soo dhadhami weydo, taas oo ka dhalanaysa in beerkii uu sidii la rabay u gudanayno shaqadiisii muhiimka ahayd ee suntan jirka looga saarayay. 3 mushkilado dhanka habdhiska dheefshiidka ah oo qofka ku soo noqnoqda, sida caloosha oo qofka la majiiro, casiraad, iyo jirka oo midabkeedu jaalle isku beddelo. 4 madax wareer iyo matag joogto ah. 5 midabka kaadida oo isbeddesha xitaa marka uu qofku biyo fara badan cabo. 6 dareerihii jirka dibaddiisa u bixi jiray oo yaraada, sida kaadida iyo dhididka, oo gudaha jirka ka soo bixi kari waaya sida kaadida. Fadlan nagu soo biir si aad uga mid noqoto dadka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta talooyin caafimaad aan soo gelino barteena. Follow like mahadsanid.